major act in the drama. A single plane carrying a single bomb takes off from Tinian and drops that bomb over Hiroshima and kills 50 to 60 to 70,000 people. We are now into a completely new era. Perhaps 100,000 people incinerated in seconds. hubka nuclear-ka waxaa haysta 9 dawladood Mareykanka weeyaan dawladda kaliya hubka nuclear-ka isticmaashay dagaalkii labada adduunka oo magaalooyinka Japan ee Hiroshima iyo Nagasaki laba bam nuclear ku dhufatay magaalooyinkina ay dhulka galeen halista bamka nuclear-ka leeyahay waxa weeyaan hal bam nuclear ayaa ku filan magaaladan inuu sida u burburiyo magaalada lama degaan oo ka dhigo bamka nuclear-ka magaalada Hiroshima ama Nagasaki ku dhuftay Mareykanka suntiisi ilaa waqti xaadirkan ay saameyntiisa taala هذا بس قال كده لبب كانوا يقولي كاستا محاكو كلفين سمستان قرما سايا سمستان الدنيا انت عندنا ما سمستان دون تبم نقولي يرى مقال كده انتو كتشرنا كده شو بدونا فضل عدن وعشرة سبسكرايب صار مقال كلايك نصار دعوة شوعا sagaalkan dawladood hubkooda nuclear-ka diyaarka marka la isku wada geeyo waa 1800 oo madax ayaa diyaar oo daqiiqad walba la ridi kara ama waxay ku weerari karaan ama isku difaaci karaan iskada inta kaydka ay kayd ahaan u haystaan laakiin inta diyaarka ayaa 1800 oo madaxa waxaana soo sheegnay hal madax oo bam nuclear ku filan yahay inuu magaalo si u dhantahay lama deegaan ka dhigo sagaalka dawladood bamka nuclear-ka waxaa kamid ah Ruushka oo ah dalka ugu madaxda badan gantaalaha nuclear-ka oo 7,000 oo gantaal haysta waxa ku soo xiga Mareykanka oo iyaguna 6,800 oo gantaal haysta Faransiiska oo 300 oo gantaal haysta soo kala Shiinaha oo 270 madax oo nuclear-ka haysta kaalinta shanaad Ingiriiska ku jiro 250 madax haysta kaalinta lixaadna Pakistan oo ah dalka kaliya muslimka hubka nuclear-ka haysta ayaa ku jirta oo haysata 140 madax oo nuclear kaalinta toddobaad Hindiya ku jirta 130 madax haysta iyaguna kaalinta sideedna waxa ku jirta Israel oo 80 madax haysta kaalinta sagaalaadna North Korea ama waqooyiga Korea oo iyaguna 20 madax oo nuclear haysta dhammaan sagaalkan wadan hubka nuclear-ka way ku dhawaaqeen haysashadiisa marka laga reebo Israel kuma dhawaaqin haysashada hubka nuclear-ka soo kale marka lagu tuhmo inay haystaan 80 madax oo nuclear ma beeniyaan sanadii 1970 waxaa la sameeyay ururka hortaga faafitaanka hubka nuclear-ka waxaana kamid ah ururkan Mareykanka, Ruushka, Shiinaha, Ingiriiska iyo Faransiiska 5 dawladood laakiin Hindiya, Pakistan iyo Israel ayaa diiday in ururkan ka qayb galaan soo kale 2003 North Korea way ka baxday oo way diiday in ururkan ka qayb gasho bamka nuclear-ka waxa loo aqoonsan yahay kaliya 5 dal oo ah Mareykanka iyo Ruushka, Shiinaha iyo Faransiiska iyo Ingiriiska 5 dal bas ayaa loo aqoonsan yahay goorma ay sameystaan hubka nuclear-ka wadamadani maxaa ku kalifay waxa ugu horeeyay bamka nuclear-ka sameystaa wuxuu ahaa dalka Mareykanka oo cabsi ay ka qabaan Naaziyiinta Jarmalku inay ku soo duulaan darteed ayuu sameystaan hubka nuclear-ka waxaana ku dhiiraday sameynta hubka nuclear-ka madaxweynaha Mareykanka Franklin 1939 bilowgii dagaalkii labada adduunka sababtoo waxay rabeen waxay kaga hortageen Naaziyiinta Jarmalka ee awoodda badnaa waxa ku soo xigay Ruushka oo sanadii 1949 iyaguna bamkooda nuclear-ka ee uu horeeyay tijaabiyay oo waxay ku tijaabiyeen wadanka Kazakhstan lagu magacaabo waqtigaas Soviet Union-ka ka wada tirsanayeen Ruushkuna waqti xaadirka oo dalka ugu madaxda nuclear-ka badan adduunka waxayna haystaan 7,000 oo madax Great Britain ayaa ahayd dalka saddexaad sameystay hubka nuclear-ka oo 1952 tijaabiyay hubkooda nuclear-ka horeeyay waxaana dhayn mar haddii Soviet-ka sameystay hubka nuclear-ka annagana maxaa naga reebay meesha saasay ugu soo beereen kooxdan haysata hubka nuclear-ka waxa ku soo xigay dalka Faransiiska oo iyaguna 1960 tijaabiyay hubkooda nuclear-ka horeeyay soo kale waxa ku soo xigay iyagana dalka China oo 1964 tijaabiyay iyaguna haddaba 5 dawladood waa 5 loo aqoonsan yahay haysashada hubka nuclear-ka wax gumaado laakiin waxa jira dalal 5 ka tirsaneen oo hubka nuclear-ka haysta ay kor ku soo sheegnay Hindiya ayaa iyaguna tijaabiyay hubkooda horeeyay bamka nuclear-ka 1974 dalkeena kama tirsana ururka xakameynta faafitaanka hubka nuclear-ka ये कोई भूकंप नहीं बल्कि Pakistan oo iyaguna kamid ahayn ururkan xakameynta hubka nuclear-ka ayaa markaa arkeen dalkii Hindiya oo tijaabinaya nuclear ayaguna yiraahdeen maxaa naga reebay anaguna waan sameysanaynaa markaasay sameysteen ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं पाकिस्तान लगाएगा si fiican loo yaqaan waqtiga soo bilowday Pakistan sameynta ama farsameynta hubka nuclear-ka laakiin sanadii 1998 markii
hindiya dhowr bamo nuclear tijaabisay ay Pakistan iyaguna la soo baxeen idhaadeen anakuna waa naka banaysanaa bamka nuclearka oo ay ku dhawaaqeen haysashadiisa Israel ayaa soo kala haystay iyaguna state madaxa hubka nuclearka kuma dhawaaqin iyagu haysashada bamka nuclearka mana sheegin laakiin mar walba lagu tuhmo state madaxa hubka nuclear ay haystaan ma diidaan ama ma beeniyaan waxaana dhahaan mar walba ma nihin dalka ugu horeeya isticmaali doona hubka nuclearka taas macnaheedu waxa weeyaan inay hubka nuclearka state-kan gantaal ee lagu tuhmay inay haystaan Israel soo kale inay loobin dalka North Korea oo 20 madax oo hubka nuclearka haysta waxayna tijaabiyeen hubka nuclearka oo horeeyay sanadii 2006 reer galbeedku markay maqleen hubka nuclearka North Korea runtii aad buu u naxay cabsi fara badan ku dhalatay sababtoo ah hubka nuclearka khasaarihiisa ay garanayaan iyo ninku gacanta u galay inaanu nin mas'uul ahayn oo khibrad fara badan u leh xakameynta ama haysashada hubka nuclearka inta kor ku soo sheegnay waa wadamada hubka nuclearka haysta ee sheegay mar walba inay isku difaacayaan oo aanay ku weerarin wadamo kale laakiin soo kale waxa jira wadamo fara badan oo caalamka ku yaala uguna rabo inay hubka nuclearka sameystaan iyadoo intii horeba loo taaglaayay xakameyntoodii waana dawlado badan runtii waxa kamid ah Turkiga iyo Brazil iyo wadamo kale laakiin dalalka waxa ugu caansan dalka Iran oo mar walba qarka u saaran inay noqoto quwad nuclear laakiin reer galbeedku wax walba ay kaga hortagi kareen haysashada hubka nuclearka Iran way sameeyeen oo cuna qabateen kala duwan ay saaran qadiyada Iran oo dhinaca iyo Israa'iil Mareykanka oo dhinaca u dhaxaysa gabigeedu waxa salka ku haysa waa hubka nuclearka Iran si looga hortagi lahaa waxa soo iska hormaada iyo colaad in arkana u dhaxaya Iran iyo Israa'iil Mareykanka dhamaantood waxa salka ku haysa in Iran laga hortago in hubka nuclearka samaysato dawlad walba isku dayna hubka nuclearka samaysato walibana gaar ahaan wadamada islaamka oo aad looga ilaaliyo waxa ku dhici doonta isla cuna qabatanada ku dhacay Iran oo kale waa fariinta rabaan ay reer galbeedku noo soo diraan maalin walba Pakistan waa dalka kaliya muslimka ay lagu ogyahay haysashada hubka nuclearka Pakistan markay arkeen Hindiya oo hub nuclear samaysatay iyagana kalsoonida fara badan ba ku dhahnayd wax walba ha dhacaan bay dhaadeen anaguna samaysanaa sababtoo ah nolosheeda ayaa khatar ku jirta muuqaalkan maanta intaas uu noogu yahay fadlan ku cusubtay subscribe sar fikirkaaga comment-iga oo san ugu reeb wasalaamu calaykum